السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت واحد بلوني تابركي حلقة قبل كتقدر مركا واحد رجعنا دقنا ربعه إني قاعن كجيستان كقاثان قاعن بقوله أنا قاعد سكوت دوبان ما أنت وأنا هين سكوت دوبان الحمد لله ما أنت بلوني. magacaygu yahay Khalid Xuseen Maxamed kana mid ah ciyaartoyda loo soo xushay xulka gobolka Togdheer waxaan halka ka cadeynayaa maanta oo ay tahay kooda bishii inuu tababarkii si rasmi ah noogu furmay kulli wallahi alxamdulillah aad baan isugu wada dubanahay dhamaantayo markan insha Allah waxaan rajeynaynaa markii Togdheer inuu noqdo sanadkan dhammaan waxaan u sheegayaa taageerayaasha gobolka Togdheer gudaha iyo dibadba in xilku hal mid yahay midaysan yahay waxaan dibadaha laga sheegay iyo meelaha laga sheegay ee cadufada iyo xumaanta burcayna in waxba ka jirin oo kuwa xulkii isku wada duuban dhamaantooda jooga waxaan leeyahay waxaas waxba kama jiraan xulka gobolka Togdheer waa mid siyaasad ugu ogtiin insha Allah waxaan idin tusi doonaa indhihiina waxaan idin tusi doonaa insha Allah waxaan rajeynayaa mar sanadkan koobka keeno gobolka Togdheer ilaahay xisir adigu dhacdooyin ka qaar iyo saacad hogasha aad baan u salaamay waxaan kaloo halkan ka salaamay siduwaha dhalinyarada ciyaaraha gobolka Togdheer KC Yusuf Cilmi macalinka Saciid Xiiray macalinka labaad Shiine magacaygu waa Khalid Salaam Xasan kuma magac Khalid City marka hore ilaahay baa mahadlay marka xigtaa waxaan salaamayaa isduwaha sportska maamulka golaha ammaanka ee gobolka dhammaan wixii allaaliyo wixii taageero dhan halkan waxaan laga bilaabay calaamadii kulli sanadkan saanka sano arko waa sanadkii gobolka Togdheer bulshadiisu ay farxi lahayd bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu Xamse Maxamed Ayax kana mid ah ciyaartoyda loo soo xulay gobolka Togdheer maanta waa Oktoobar bishii 10aad kowdeedii waxa si rasmi ah ugu bilaabmay calaamadeeda xulka gobolka Togdheer insha Allah waxaan rajeynayaa gobolka Togdheer inuu sanadkan koobka gobolada soo qaado dhammaan taageerayaasha gobolka Togdheerna waxaan leeyahay diyaar garooba insha Allah gobolka Togdheer sanadkan waa diyaar magacaygu waa Maxamed Cali Salaabaan oo ku magac dheer Isqo
waxaan ka tirsanay bilayadarada loo soo xulay xulka gobolka Togdheer maanta ay tahay bishii Oktoobar 2020 trainingkii baa si rasmi ah noogu bilaabmay waxaan ku suganahay gegida weyne Alamsi Stadium insha Allah waxaan rajeynayaa inuu teamkayga anagu aan guul la taaban karaan ku soo hayno koobka gobolada ee lagu qaban doono caasimadda dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa insha Allah guul baan u rajeynayaa gobolkayga بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على نبينا محمد كل وسلام يا بعض صحافته iyo madaxda wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ugu horeeyay wasiirkayga Mr. Boss iyo agaasime guud dhamaantood waa salaam agaasimeyaasha kala duwan ee waxyaha run ahaantii kulay maanta waxa aad u jeedaan ciyaartoydii gobolka aan soo xunlay oo maanta trainingkii bilaabay waa wax Ilaahay lagu mahadnaqo run ahaantii kulay waxaan arkaynaa wax badan oo inoo soo maray ka gobol ahaan maanta waxaan doonaynaa inaan ka soo doogsano wixii na soo gaaray ee hore gobolka soo daashaday waxaan ahayn gobol ku suntan koob qaadis iyo kaalmaha ugu sareeyo heerka dalka Soomaaliland run ahaantii maanta kulay waxa weeyaan wajib ka duwan kii hore ayaa naga arki doontaan waxaan rajeynayaa gurba joogta reer Burco khaas ahaan ciyaartoydii gobolka inay soo maalgeliyaan ciyaartoyda gobolka oo niyad iyo dhinac walba iyo taageeraba ay soo bixiyaan u soo fidiyaan run ahaantiina kulli wax walba isku xinaashuun bay ku fiicantahay wax walba isku xinaashaha anagu haddaan nahay ka wasaaradahan isuduwe shaqaalihii wasaaradda haddaan nahay waxaan jecelnahay in gobolka suxmadiisii uu lahaa aan dib u soo celino marka hadal badan anoo sii waday kulli shaqana waana sugaysaa run ahaantiina ciyaartoydu waa aragtaan dhiina ku arkaysaan dee waxaan u baahanahay taageero mugli waad soo tartaan xulka gobolka Togdheer inagoo maanta u eegin reer hebelnaba aan iyo saamitoon aan u eegino u xunlay kooxihii ka ciyaaraya Burca Cup ka soo xulay aan ka soo xulay ciyaartoydii ugu wanaagsaneed walow dee nasiibkii inta nasiib ciyaartoy kala badanna ay joogaan kuwaana mustaqbalka aan soo saari doonno insha Allah ka wasaaradahan marka waxaan u baahanahay dee waxaan u baahanahay qurba joogta reer Burco waliba kuwii hore kuwii dhexe iyo kuwii dambaba ee ciyaartoyda gobolka Togdheer soo maray inay qayb libaax ka soo qaataan tartankan iyo maxay trainingkan iyo dhiirigelinta ciyaartoyda loo sameeyo annaguna waxaan ku taaganahay jundigi iyo wixii maskaxan lahayn ka wasaaradahan wala ku taaganahay marka hadal badan kala sii wada meel hawsha baa noo socota waxa la dilayahay aan ku buurinayaa wada shaqeyn wanaagsan reer Burco ka kaca fadhiga